waxaana si degdeg ah loo guda galay doorashada golaha shacabka. dowlad goboleedka Galmudug ayaa noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay isla markaana dedejiya hanaanka doorashooyinka, waxaana warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka Galmudug oo ku siixan yahay gudoomiyaha guddigaasi Maxamed Daahir Kuleed lagu soo saaray liiska kuraas muhiim ah oo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanadu ay iska leeyihiin. kuraasta la shaaciyay isla markaana sida weyn loo hadalhayay doorashadooda waxaa ka mid ah hoob 53, hoob 64, hoob 12, hoob 49, hoob 96, hoob 248, hoob 81, hoob 139, hoob 25, hoob 55, hoob 147, hoob 7, hoob 137, hoob 138, hoob 40, hoob 48, hoob 71 iyo sidoo kale hoob 89, hoob 51, hoob 35, hoob 61 kuwa ay ku fadhiyaan xildhibaano mug iyo miisaan ku leh dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanada kuraastaasi ku fadhiya waxaa ku jira kuwa 4 sano ee la soo dhaafay mucaaradaha isla markaana si weyn